بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta oo dhan. Maanta waxaan joogaa beer yariis oo ku taalo London. Beerta waxaa ka baxo geedo fara badan. Sida aad u jeedaan waxaa ka baxo geedo daawo ah sida lavender. sidoo kale sidaad u jeedaan waxaa lagu beeraa fiyorooyin fara badan. Waa beer iska yariis ah oo waxaa inta lagu sameeyaa nursery. Geedaha lagu barbaariyaa kuwa indoorka gudaha lagu beero iyo kuwa outdoorka lagu sameeyaba intaba. Sidoo kale waxaa ka baxo geedo aad iyo aad u qurux badan markay fiyooraha sameynayaan ka bogta. sidoo kale waxaan arkay geed u samaysan si cajiib ah. geedkaasi oo ah magaciisa monk basil tree. waa geed qodxa leh. waa ka sada u jeedaan. marka maanta waxaa igu qalifay inaan meeshaan imaado oo waxaan raadiyay internetka. waxaan ka raadiyay beer xaafadeeda u dhow kana igu dhawaa. beertii waa imaaday, waa booqday weli ayadoo waqti subax ah saacadu ay tahay 9 subaxnimo. marka hadalka aan ku soo laabtay waxaan u imaaday meeshaan markaan arkay dhibaatooyinka Soomaaliya ka jiro ee gaajada, baahida, abaarta iyo waxyaabaha la midka ah. geedkani waxa waaye tamaar yaanyo, peppermint oo nacnac loo garanayo. sidoo kale fiyorooyin fara badan aa meesha lagu beeray. waa meel aad u qurux badan. marka waxa su'aal ee taala waddankeena waxaa la yiraahdaa waddan hodan waaye oo beero fara badan iska leh. haddana dadkiisa gaajo u dhuminayaan, dadkiisa tahriib u soo baxayaan, badaha isku soo shubayaan, nafsadoodana soo haligayaan mararka qaarkiis sababtoo ah shaqo ma laha waddankii sida la dhahayo. musuqmaasuq baa dawladdii ka jirto. kooxa la dagaaltamaysana way jirtaa oo argagixiso lagu sheego. marka walaalayaal intaan ka baxno waddankeena maan dhisano oo beerooyin yaryar sidaan intaan xaafad walba ku samaysano. meeshaan waa meel aad u yar. inta geed ka baxaysana waad u jeedaan. masaajid walba waxaa ka jiro biyo lagu weysaysto. biyahaasi lagu weysaysto meel geedaha lagu barbaariyaa lagu sameyn karaa xaafad walba. waa solution very easy simple ah oo lagu beeri karo geedo aad u fara badan magaalada faa'iidana u leh dadka iyo xayawaankaba iyo shimbirta. haddeer geedkaani waxaa la yiraahdaa aloe vera. aloe verana wuxuu ka mid yahay geedaha Soomaaliya ee caanka ku tahay oo naturalka u baxo. adduunka waxaa la siistaa lacagaha ugu qaalisan. dukaamada la isku qurxiyo body shopka geedkan waxa ku dhex jira meeshaasi waxa ay ku soo gataa lacaga fara badan. beero geedahan oo kale biyo badanna uma baahna. waa geed oonka adkaysan karo. shaqaa lagu abuuri karaa. dadka soo qaxayo beer yariisay iibsanayaan, ceel yariisay ka qodanayaan hadday wibi u dhaween. geedahanay ku beeri karaan. adduunkana qiimo qaali ka joogo. geedkan magaciisa waxaa la yiraahdaa aloe vera. beerta dhinac kale bay leedahay. dhinac kale ee leedahay waa kana. waa beer tijaabo ah oo geedaha lagu beero
ka bacdi geedahaanayta suuqaa la geeyaa wixii ka soo baxo. hadda geedkan oo kale beetroot aa la dhahaa, nafaqo badan uu leeyahay. kan waxaa la yiraahdaa kale fruit ama kale plant. marka walaalayaalow beeraha aan falanno, waddankeenana aan dhisanno. beeraha waa hal solution. kan waxay ila tahay basal baarti inay tahay. basal baarti waa kana meeshaan lagu beeray, tijaabo lagu wadaa. ka bacdi markii la beero miraha ka soo baxaa meel la dhigtaa. waxaan cajalkan u sameynayaa waxa waay markaan arkay dhibaatada Soomaaliya ka jirto oo baahida dadka gaajada la dhimanayo. gaajo hadday jirto, dhulkiina hodan yahay, waa calaamatu su'aal aad u weyn in la isweydiiyaa sidee bay ku dhacday. dowladdana waxaan u sheegayaa haddeeba cajalkaa maqlayso inay xoogga saarto shaqo abuuris shacbiga loo sameynayo. sidaa la socotaan Soomaaliya shaqo la'aana ka dhacday, sicir bararaa ka dhacay, waxa la yiraahdo stagflation, sicirkiiyo aad qaali u noqday. shaqaalihii oo shaqo waayeen. iyo dakhligii oo yaraaday. waxaa maqlay xataa beeraleydii masagada beeraayay in masaga loo keeno. waxaan kaloo maqlay kuwii sisinta sameeyay jireen, sisintooda halkii tan meeshuu ka ahaa $1,500 inuu maanta yahay $500. sababtana ay tahay dad aan aqoon u lahayn sisinta oo qashinkii iyo sisintii isku dhex daraayo. saas darteedana Soomaalidii sumcad ku weysay suuqa caalamiga ah. marka facility yariisa u baahan yihiin. walaalayaal ku dadaala inaad dhulkiina quraxsataan, inaad beeraha falataan. intaasoo bas ma aha inaad warshado yaryariis samaysaan. waddankii hadduu dhibaato ka jiro inay rag u soo baxaan waaye. dadka dibadaha joogo inay waddankii ku laabtaan insha Allah. nafsadeeda aan ugu horumarsiinaa inaan dadka wax u sheego ma aha, waa inaan nafsadeeda ka bilaabaa. marka walaalayaal ii soo duceeyay inaan waddankii ku laabto sida ugu dhaqsiyaha badan, si aan ummaddaasayto waxaan u qabani karo aan ugu qabto, oo faa'iidada labada dhinac win-win situation aanu u qaadano. waatana beertan quraxdeeda xaafad walbaa laga sameyn karaa, beer walbaa laga sameyn karaa. solutionka ugu fududna waxa waaye maadaama geedka biyo uu u baahan yahay, masaajidyadana biyo badan lagu weysaysto. masaajidyada biyo badan lagu weysaysto, in masaajid walba laga sameeyo meel lagu xanaaneeyo geedaha lagu koriyo. lacag badanna uma baahno, qarash badanna uma baahno. aqoon yariis ahay u baahan tahay. aqoon yariis ahay u baahan tahay. waa dhul yariis aan weyneyn. haddeer bal fiiriya meeshaan geedahana idin tusayaa. waa geeda daawooyin ah, catarada caalamiga laga sameeyo, daawana ah. waa kas lavender. nacnaac, peppermint. waa kana masaajid walbo miyuuna awoodin inuu meel sidaan oo kale intuu sameeyo. masaajidyada waaye, masaajidyada waddankii ka jiro miyaysan awoodin dhul yariis aan aad u weyneyn
oo biyaha lagu weysaysto intii la kaydiyo lagu waraabiyo geedahaas ka bacdina shacbiga loo qeybiyo guri warba hortiisa lagu beero geed walaalayaal waa wax sahlan in lagu hadlo sameyntiisuna ay sahlan tahay insha Allah marka ku dadaala masaajid walba hal la gaarsiiyo qofkii ma aragtay maskax leh qofkii lacag hayo qofkii waqti hayo inuu juhdigaas masaajidada u sheego ee xiriir la sameeyaan qofkii ajalkan daawado oo fikirkan aan soo jeediyay ee masaajidda rabo inuu ma aragtay u bedelo amal oo hadalka ka bedelo amal u bedelo hadduu sameeyo fikirkaas ay la soo xiriiro hadduu musawiro ka soo qaadanaha ii soo gudbiyo si aan shacbiga ugu sii